رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maalin wanaagsan saakay waxaan fariintan soo diyaariyay u gudbinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa dalka iyo dadkaba sidii loo nabadeyn lahaa nabad laga shaqeyn lahaa waxaan rabaa si gaar ah inaan uga tacsiyeeyo dadkii ku dhintay shaqaaqadii dhawaan ka dhacday magaalada Laascaano dhibaatada magaalada Laascaano ka dhacday waa fogtahay waa dhibaato culus in hore badanna waan ka dignay waana ka hadalnay haddana inaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo marka hore dadkii meesha ku dhintay qoyskii dadkii kale odayaasha ahaa dhammaan waxaan leeyahay samir iimaan Allah naga siiyo inta ku dhaawacantayna muxuu Allah caafiyo nasiib darro weyn waaye maanta in Soomaaliya meel ka mid ahay wali qoray la soo qaato arinta Laascaano iyo Soomaaliya sanaag hadda ka hor dhowr maraan ka hadlay مواقفta dawladda federaalka iyo aragtidayda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aan wax weyn iskama bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah wiil iyo abti ah waa dad maxaan ku yiraahdaa inan iyo sodogiis iyo inan seedigiis ah dad isdhalay isdhex degay isla dhashay waxa isku haystaan marka jirnacayb iyo dad nacayb maahana waa siyaasad horena waxaan u yiri aan u sheegay muddo dhowr sano ka hor mushkiladaasi Soomaaliya sanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinayo ayaana xalka muxuu ah Soomaaliya sanaa ay ku dhex jiraan sidaas daraadeed waxa meeshaas ka dhacaya waa ka xunahay raali kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa qoray lagu xaliyana suurtagal ma aha rabitaanka dadka hal la ixtiraamo qoryaha hal la dhigo xabadda hal la joojiyo هلا وضع هدلو ميسك وضع هذا الكهل السوقي ماذا هلا وضع هدلو دولة فدرالك الصومالية مدحونا الجمهورية دادان أي ديار وحانو هاي مال كستا أو نبض داسي لوغا هدلايو يعد كستا أو نبض داسي إني كادا شجعلبا إنان أني قرب تاغن هاي وصفرو تولد وفوق الديتاي إنان تاغن ديار وهاي لكن ولا ليال حلقو مرنا قوما إمانا يقول إنان بقلال أما قوما نانقف إنتان دلنو kadib korkooda hadhow aan isku gacan salaano oo aan nabadan aan ka dhalinay aan dhahno xabadka isku saarno waa laga rooyaa balaayada bootin bakayla ayay leedahay hal la joojiyo intaan faraha ka bixin berri inaan xabadka is saarnay inaan hubo in la heshiinayo yaanan meedadkeena iyo xabaalaha dushooda yaanan ku heshiinin dadku intay nool yihiin aan heshiino hal la joojiyo maamulka cidda sheeganaysa cidda odayaasha dhaqanka ah culamaa u diinka مسؤولينتي سياسيينتا qof walba doorkeeda nabadeed ha qaadato colaada Laascaano siima socon karto lamana aqbali karo hal joojiyo miiska wada hadalka la isugu yimaado dawladda federaalka waxay diyaar u tahay inay fududeyso ka qayb gasho kaalmayso hadii toos dadka hadda ay colaadu dhaxmartay u wada fariistaan arinta waxa ka socda Laascaano waa aragti siyaasadeedna qoran kuma xalisanto xalkeedu qoray kuma yimaado kan raba iyo kan diidanbo xalkeedu qoray kuma keeni karaan hal isu yimaado hal wada fariisto mar walba horan uga shaban mushkilada ka jirta Sool iyo Sanaag waxay ku dhex jirtaa xayndaabka jirinta aan jirinayna arinta midnimadana anagu go'aanay naga taa xoog inaan ku raadino ma doonayno nabadaan rabnaa inaan ku raadino dadka rabitaankiisa hala dhowran leenahay meeshaasi colaadaasi colaad dadka qabata ma dadka Soomaaliyeed ma qabato dadka deegaanka guud ahaan ma qabato hal joojiyaan ku baaqayna mar kale culamaa u diinka iyo odayaasha dhaqanka ayaga deegaanadaas oo dhanba nabadeeda waligood ka talin jiray nabadda ha ka taliyaan inta qoryaha dadka haysta amarka kule ama kule maxaan ku raadaay raadka kulane hala hadlaano ha joojiyaan wiilasha qoryaha laga qaado hal damiyo colaada intaas Soomaaliya guud ahaan meel kasta walaalayaal waxaan leenahay colaada ka jirta hal joojiyo xumaanta hal joojiyo nabadda lagu baaqo lama aqbali karo dhiig kale oo Soomaaliyeed oo daad wax la aqbali kara ma meel kasta ha joogo sabab kasta la soo waxay hadiina markaas aanan lagu difaacaynin diinta iyo dalka iyo dawladnimada laakiin reer hebel iyo deegaan hebel iyo koox hebel sidee warkeyga u diidi kartaa iyo koox hebel warkeeda ma doonayno muxuu ahaay xalku ma noqdo hal laga yimaado leena walaalayaal meeshaas waxa kale oo ayada halka rabaa inaan baaq uga jeediyo odayaasha reer Puntland iyo waxgaradka iyo mas'uuliyiinta iyo maamulka dawladda meesha ka jirtaba ayagana waxa uu baaqaynaa nabad walaalayaal
warku balaayadu marka ay bilaabanaysa meelo khafiif oo sahsaalan ay ka bilaabataa meelo fog ay ka bilaabataa dalkaas iyo dowladdaas iyo deegaankaas reer Puntland nabaday weligood haysan jireen nabadii inay haystaan aan la jecelnahay ayaguna waxaan u baaqaynaa in arinta wada hadal lagu dhameeyo odayaasha dhaqanka ha qaataano kaalinta ay leeyihiin oo ah kaalinta nabadeed haddana ay qaateen waanu ku bogaadinayaa inta odayaasha istaagay ee u istaagay arintaas in nabad lagu soo xalliyo arinta nabad ha lagu xalliyo dowladda federaalka Soomaaliya sidaan hore u sheegay wax kasta oo nabadaas ka qayb qaadanaya laakiin ma saacideyno ma taageereyno raali kama ahin in mushkiladaha na dhex yaala in qoryo aan isu qaadino ku xallino kuma xalli karno nooguma xalismayaan baraan heshiinayna ilaa meelan kala aadayna male xabaalaha korkooda yaan ku heshiinin nabadda korkeeda aan ku heshiino deegaanada dhan intaas oo ugu baaqaya meel kasta oo khilaaf siyaasadeed ka jirana wada hadal aan ugu baaqaya waxaan hadda isku haysanaa isma nicbin waa siyaasadana daawadeeda iyo xalkeeda dariiqa kaliya oo ku yimaado waa dariiqa dimuqraadiga ah oo in la wada hadlo ah hal la wada hadlo anagoo dhaqankeena suuban ilaalinayna diinteena ilaalinayna dadkeenana u tureen aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi